waxaa maanta farxad noo ah inaan halkan kula dabaaldegno walaasha iyo daradalka buuggeeda ama nidaamyo ugu horreeyey laga qoro magaranaysa arrimaha indhaha ama badqabka indhaha wax badan ka sharaxaya khadra waxay kasoo shaqaysay deegaanada puntland iyo weliba dalka baahinka. awalan waxaan idinku soo dhaweynayaa bandhiga buugga Dhayan Cup anigoo ku hadlaya bahweynta Awjaamac Cumar Ciise oo soo abaabushay. runtii buugga Dhayan Cup waxaan ka mid ahaa asxaabtii soo akhriyay oo muddo bahayay. waxaa la yiri qoraagu markuu wax qorayo laba falsafo unbu hadlaa, mar waa ogaal hadlaa, marna waa hibo hadlaa. mar waa hibo waa dadkan sheekooyinka fictionka sameeyo oo waxa weeye waa hibo hadlaa, marna waa ogaal hadlaayo waa sayniso wax uu bartay buu ka hadlaa. horta buuggaani maaha buug fiction ah, waa buug saynis ah oo cilmi ah oo qof kasta ama dhalinyaro ha ahaado ama waayeel ha ahaado si uun u saameynaya. dadka dhalinyarada ee Soomaalida waxay u qabaan aragtida waayeelku inuu lumiyo, laakiin ma aha waayeelka qura. casriga aynu hadda ku jirno waa casri yani teknolojiya. kulligeen dhalinyaro haddaynu nahay laab salaax iyo waxa weeye mobile baynu haysanaa oo aynu in badan isticmaalaynaa. markaas oo waxa weeye aynu u nugulnahay haddii aynan si wanaagsan u isticmaalin sida buuggaani uu ka hadlayo inaynu aragtiyaha qayb ka mida lumino. marka waa buug qof kasta oo bili-aadana oo Soomaali ah oo luuqadan ay ku qoranto Soomaaliyeeda anfacayo weeye, ama waayeel ahaw ama dhalinyaro ahaw. waxaan kaloo idiin sheegayaa qoraalka iyo akhrisku Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo diinteenna markuu Nabi Maxamed ku soo dejinayay iqra buu ku bilaabo akhri. isla aayadda dhexdeeda waxaa looga hadlay qiraa'ada iyo qalamka, waana labada hogaamiya nooluhu meel kastoo ay joogaan. maxaa wacay haddaan akhris jirin aqooni ma jirto, haddii waxa weeye aan qalam jirinna aqoonta la doonayo laftirkeeda lama helayo. buug waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan la cajab waxay tahay haddii aad iibsataan adinkana la cajabaysiin waxay tahay sideedaba waxaa la yidhi haddii la sheego mar what waxaa ku xigta how. haddii mar lagu sheegay isha waxa ay tahay qaabka ay u shaqeyso cilmiyan anatomically, fakshan ahaan qaabka isha u shaqeyso aragtida nuuca ay tahay waxaa ku xigto how, qaabkee ayaan isheeda taxadir badan ugu sameeyaa. marka muwaadida sida goonida ay soo jiidato waxay tahay anigu hadalka soo koobaya cutubka 6 haddii aan review yar ku sameeyo. cutubka 6 soo labaad waxay tahay anagu badan waxaan isticmaalnaa telefoon iyo kombiyuutarro iyo waxaan kaloo isticmaalnaa wax walba oo digital ah. aniga si qaas ah waxaan aad ugu waalanahay waliba markuu caafimaad qabo waxaan aad ugu waalanahay kombiyuutarka. 90% waxaan focus ka saaraa kombiyuutarka. mana ogeyn mar walba aan isku dayo 1 saac 2 saac inaan kombiyuutarka dul fadhiyo anigoo daniyay ku qabsanaya ama anigoo ku shaqeynaya. waxaan badan aan dareemi jiray qoor xanuun, waxaan dareemi jiray caajis, waxaan dareemi jiray fadhigana nooco. xalay maraan isdhahay leeyahay 4 saac something waaye ayaa buun ka soo qaatay. weelka 88 ayaa waxaan ka ogaaday cilmiga ah in 90% aniga aan isdilay. caafimaadku badan yahay anigu baada caafimaadkan ku jira, laakiin markay imaato indhaha waxaa hooyo iga ah qadro. ayadaa hooyo iga ah, ayadaan ka wareysanaya, ayadaana igu barbaarinayso. si walba ay ahaato waan iska hadal badanaa public speaker ayaan ahay, laakiin waxaan ku soo koobayaa qof inuu buuquna ma sahlana si aad u waatay cilmiga buuqa ku jira. xalay maray taasaminkan waxaan u tegay yar oo almost 6 sano 7 sano wuxuu ka shaqeynayay indhow ka shaqeynayay. su-aasha ugu badan weydiiyey waxay ahayd Soomaalida waxyaabaha ugu badan ee kala kulantay maxay tahay. wuxuu dhahaa badanaa waxay noo imaadaan ayagoo indhahooda ay yihiin mainstream. sida caadiga caafimaadka waxaa la rabaa aragga fog qofka 0.25 inuu yahay. sidaad hoolka u soo camideen waxay dhiirigelinaysaa Baaya Khadro sababtoo ah qofka hadduu arko dad intaan la eegay wixii xiisaynayaan oo xiisa u qabaan wuxuu ogaanayaa waxa uu bulshada u soo gudbinayo inay wax tar leeyihiin. Khadro waxaan leeyahay Baaya hambaliyo hadafkaagii inaad kamira dhalisay maanta taas waxa weeye horta waa kugu hambalyeynaya. in badan baan rag hool saan ugu soo camirnay buug naga gadaya
marka maanta waa maalinteeni waa maalintii gabdhaha halkan waxaan u jeedaa inay gabdhuhu badan yihiin maasha Allah tabaarakallah waxay ku cadeynaysaa gabdhuhu inay diyaar u yihiin inay garab istaagaan gabar walba oo hibadeeda iyo hal-abuurkeeda bulshada u soo gudbinaysa khadra waxaan leeyahay abaay mahadsanid mar koowaad iyo mar labaadba si aad noogu soo gudbisay maadaama aadan noo gaarsiin karin qof hibada aad ilaahay ku siiyey iyo taa aad baratay oo waqtiga gelisayba tacliinta aad baratay idinkana waxaan idiin sheegayaa sida hibo aad howlka ugu soo camirteen buugga u iibsada si ay idinkuna uga faa'iidaan annagoo dhanna aan uga faa'iidno waxaan ka mid ahay tiimka buuggan soo akhriyay buuggan waa buug muhiim ah waxuu ka hadlayaa qeybaha ugu muhiimsan caafimaadkeena oo indhaha ah markaan akhriyana waxaan ogaaday horta waxyaabo badan oo aan iska caadeysto iska samayn jiray inay khalad ahayd oo dhanka indhaha aysan u fiicnayn laakiin maanta waxaan ogaaday hadda kadib inay waxyaabahaas cilmi ahaan aan u bartay intaasaan kusoo gabagabeynayaa ka Soomaaliyeed oo magacaas ku hadlayana waxaan leeyahay soo dhawaada Soomaaliyeed Horizon waxay u taagan tahay isku xirka dhalinyarada iyo sidii ay Soomaaliyeed u heli lahaayeen waxbarasho free ah iyo sidii ay tababaro iyo kala duwan ay u heli lahaayeen halkan ka bilaabanaya maanta waxa weeyaan isbarashada networking-keena aad baad u mahadsantiin waxaan ku muginayaa inaad buugga gadataan oo walaashin ay dhiirgelino gabdhuhuna gabdhuhu waxa la dhihi jiray way istaageeraan bal maanta kala ogaanana waxa way taageeridooda aad ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo buugga inaan gadano rag waxay dhihi jireen gabdhuhu isma dhiirigeliyaan gabdhuhu ma taqaanaay markay gabadh wax qabato ma dhiirigeliyaan ma yimaadaan laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay inta hoolkan ku sugan inay u badan yihiin gabdho waa wax lagu farxo walaasheen khadro haddii aan nahay gabdhaha Soomaaliyeed ama gabdhaha hoolkan ku sugan inaan buugga gadano oo ku dhiirigelino oo akhrino oo waqti siino inaan gadano macna kaliya ma sameynayso laakiin waa inaan buugga akhrinaa oo waqti gelinaa oo ogaanaa walaasheen waxa ay loo qortay oo waqtiga ay gelisay inaguna inaan waqti gelino oo akhrino aqoon badan ku jirta anigu weli ma akhrinin laakiin waa gadanaya buuggan Dayakab runtii waa buug muhiim ah oo aqoon wanaagsan lagu soo gudbiyay oo caafimaadkeena khusaysa haddii aan aqoonta sidan oo kale ah naloo soo gudbiyeyna runtii waxaan dareemi lahayn wax badan inay naga hakradeen dadka aqoonta u leh runtii anigu qalliin baan galay indhaha ah labada indhood labadaba haddii inta aanan qalliimadaas marin aan buuggan heli lahaa waxaan aaminsanahay qadarka rabbi waa meeshiisa laakiin wax badan inuu iga caawin lahaa marka cid kasta oo halkan joogta waxaan kula talinayaa buuggan inay gataan oo akhriyaan oo fahmaan oo ku dhaqmaan aqoonta ku qoran wuxuu u dhigmaa adiga oo dhakhtar u baahday oo dhakhtar ugu tegay xaruntiisa dhowr kun oo lagaa qaaday tala halkaa lagaa siiyey iyadii oo marka halkan ku qoran ayaad beheli kartaa dhakhtaradiina way joogtaa dabcan marka waxaan ku talin lahaa aqoonta halkan ku jirta inaad kaga faa'iidaysataan buuggan inaad iibsataan intaa kadib waxaan rabaa inaad la wadaago jaamacad ku taala dalka Malaysia ayaa waxay sameysay aqoon baaris waxay ku wareysanaysay dadka da'doodu ay ka weyn tahay 75 sano ilaa 3,000 oo qof ayaa su'aalo la weydiiyey 3,000 oo qof waxaa la weydiiyey su'aalo ay ka mid yihiin haddii 50 sano laga jaro da'da aad hadda jirtid taasoo macnaheedu noqonayo haddii 50 jir lagaa dhigi lahaa ama 30 jir lagaa dhigi lahaa maxaad soo sixi lahayd ilaan qofku da'da uu soo dhaafay wuu og yahay wixii uu soo maray oo dhan qof kasta oo hadda caawa halkan galabta halkan jooga haddii lagu yiraahdo dib isu xisaabi maxaa soo sixi lahayd wax badan baa jeclaan lahayd inaad soo sixi lahayd hadiiba fursada lagu siin lahaa Soomaa marka khiyaal waxa jira qofku uu ku sheekeeyo oo ah haddaan saay heli lahaa waxa sameyn lahaa dadka marka fursadaas baa la siiyay maxaa sameyn lahaydeen qof kasta waxba uu sheegay waa la ururiyay waxa laga soo saaray 18 qodob 18 ka qodob
waxaa jiray hal qodob oo ay isku wada waafaqsanaayeen dhammaantood. qof kasta wuxuu yidhi haddii 50 sano laga jari lahaa cumrigayga da'dayda maadaama waa dad 75 kor u dhaafay waxaan ku soo dadaali lahaa caafimaadkayga. waayo waxay yidhaahdeen wax badan oo aan gadaal ka qabsan lahayn waxaa noo diiday caafimaadka. xubnaha bini aadamka marka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo sameeyey kulligood waa muhiim, mid kastana muhiimad gaara ayaa ilaahay inoogu talagalay oo ay noo qabanaysaa. indhuhu marka waxay ka mid yihiin kuwa ugu muhiimsan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyey. celinayaa xarunta jaamac Umar Ciise, xaruntaasoo runtii Nairobi shaqo weyn ka haysa aad iyo aad u wanaagsan. doorka ay ciyaarayso waxaa garanaya qofkii ka shaqeeya barnaamijyadan oo kale. Kismaayan ka aasaasnay 2017 2019 waa dhaafin weyne waqtiga ku baxaya kharashka gelaya Soomaalida oo laga yaabo inay u bisleen marxaladaha buugta iyo waxyaabaha la midka runtii khatro oo waxaan ku faanayaa inaan isku wadan jaamacad ku soo baranay inkastoo jaamacadda Nairobi dhigan jirtay anigana jaamacadda Afriqiya dhigan jiray Suudaan. aadna waan ugu farxay inay gabar Soomaaliyeed ay dadaashay juhdi gelisay afkeed ay ku qortay buug xogta ay ku jirto. waxaan ku soo koobayaa mar raba inaan macluumaad ku jira buugga aan gubo kulligiin oo nala akhristaan ay u baahan u gadataan, laakiin markaan buugga dhameeyay hal wax baa igu soo dhacay. waxaa igu soo dhacay in buuggan uu mudan yahay in jaamacadaha Soomaalida ee caafimaadka la geeyo, in qof kasta oo Soomaaliya oo indhaha raba inuu xog ka helo uu akhriyo. tusaale ahaan aniga labo cudur oo meesha ku jira indhaha aad iga qabsada. waxaa laga yaabaa inaan mararka qaar 6 saac oo xiriir ama 7 saac oo xiriir ama 5 saac aan wax qoro computer ishana ay guudata ishana aad ay guudata way barata xanuun ma laha cunuun ma laha wax ma laha laakiin isha way xanuuntaa. sanadkii mar ama laba weeraan waa dhaxlaasa waxaan ta marka ma gareen waxay hayaa hadda laakiin waan garanayaa wuxuu hayay sababtoo dawadiisa garanaya way kulli way qorsi. waxaan tagay isbitaal ku yaal Nairobi oo lagu isbitaalka ugu fiican indhaha. markaan tagay gooja la soo siiyey ishaan isaga shubay 2 bari kadib waxaan arkay waa isha baan araga ka tagay. waan ku laabtay waxaan ku yirnay أنا ما كورش جدود كليه أرجع هذا نوع عفاد قوي هذا راح ماركو بيفيريان أو دواء تالي بكو قرينا وآخرت لكن صدق بلو كو قال سوالي نات إيش يسوع عافمات صدق بلو تكذب نويم الحمد لله صدق بلو وافع هذا ما قرني لكن مرك هذا حكت أنا يادان هاي لها دواء حتى واسك فير لها مرك قر لكن ده وح أركتيها أو كهستي عافمات كالمجرم طلبات ماشاس نبري روكسو بعيشة جرا صير وحاكينا وحيابها سوى حلم بذا مركا نخري بوجن وحياب بدل وعني وضع أيام برتي سيد قبول الشيكتي دكتور رئيس خطرة كورن سومالي أنا وهري ولي أنا حنوصل إستال متجد ولي جاك بس كم سمعين هذا حنوصل إستال تجا وحيت الرتاس وخطر وين لقى دكتور هذا قف قاس وين مسيت شوك تأه إستال كوه حرنا أنا واحد إستال لك بقى هذا تقول أنا ما يحنونه ديكر إسكاباري عذر إسكاباري سكر إسكاباري بقول وحاضر وتجيب بالي وين وش عمر واقع بصدق ما تقول ماشي حنون إنسان هذا مركز لكن وحن ضمانتي ونطلنا يا سداد عطب يجنانتك وحيكون بدك يساع عذر والبا وحكينا يسويها لودوي marka sababaha oo qoreen waxa kamid ah hadee Soomaalidu waxay fiican kama haystaan maxay tahay muhiimadda ay leedahay baaritaanka indhaha waxa laga yaabaa marka ugu dameyso oo maxay tahay xaalad halis ay marayaan oo kale inay dhakhtarka aadaan soo hadda qoraaga Xasan Qarane oo noo sheegay batay ma dhamaantood dadka Soomaalida saas way ka siman yihiin ilaa ay yani xaalad khatar ama wax arki waayaan marka oo bay dhakhtarka aadaan marka waxaas dhahay yani si bulshada wacyigeeda kor loogu qaado armay maxay tahay fiican tahay in wax loo qoro sheeka ayaa igu dhacday laba sheeko maxay igu dhacday 2016 iyo sheeka 2019 igu dhacday ayaa isbarbar dhigaya 2016 ana xarunteeda shaqada jooga ayaa maxay waxa igu soo booqatay maamo maxay waa la wada moogtay waxa ma arkayso labada indhood dambi ahaayeen ilmaheedu inuu wadaba u maleynaya markaas maxay marka indhaheeda ka baaray maxay ilba xoogaa rajo lahayd oo hadii qalitaan loo sameeyo maxay laga yaabo in wax ku aragto
marka u sheegay yani waxay tiri 3 bilood baa saas ah hadda ogaan lahaaba in maxay indhahay wax laga qaban karo horaaba ka imaan lahaaba waa arrin la yaab leh Soomaa haddana 2019 ka anoo ka shaqeynay cusbitaal ku yaala Mareykan ayaa waxaan maxay qaabilay lamaane ah lamaanaha ninka wuxuu jiray 98 islaantana 97 sano ay jirtay labadooda indhood markii baaritaankooda wuxuu ahaa full ookiyaalaha xiran yihiin ay wax ku arkayeen araggooduna wuu fiicnaa inkastoo yani qalliin indhood ay soo mareen caadka indhaha laga qalay oo maxay xanuuno kale laga daweeyay haddana araggooda full buu ahaa markii la isbarbar dhigo ka waran maxay tahay maamadaas yani indhaha ay 2016 ii timi iyo maxay dadkan lamaanaha ii yimi maxay ahayd 2019 dadkan lamaanaha waxay sameyn jireen yani maxay dadka sida dadka Australian ku nool oo dhanba dhamaantood waxay sameeyaan baaritaanka indhaha si joogto ah ay u aadaan kuma waxirnaba inay xanuun iyo waxa dareemaan sanad kasta way iska aadaan marka la isbarbar dhigo oo kale waxa ku soo baxaysa inaysan bulshadu wacyi fiican ka haysan oo aysan ogeyn muhiimadda uu leeyahay baaritaanka indhaha sanadlaha ah marka buuga ayaa si faahfaahan uga hadlay ay anot isha maxay tahay qaab dhismeedkeeda mesela Soomaalida way taqaanaa meeshan buuda oo kale waxa la dhahaa isha ayaa la dhahaa ama iliyarada meeshan kalarka iris ayaa la dhahaa maxay tahay meesha waxa laga arko madowgaan waxa la dhahaa maxay tahay wiilka isha marka de Soomaalida qaabka waxyaalihi aan ka maqlay oo maxay tahay u yaqaanaan oo kale ayaan ku af Soomaaliya Soomaali dhaba oo maxay tahay jira oo maxay tahay cilmiga indhaha ku saabsan maadaama uusan jirin marka si faahfaahsan ayaa uga hadlay maxay tahay qaab dhismeedka isha sababtoo ah qaab dhismeedka isha haddii aad fahantid buukii maxay tahay si fiican u fahmaysaa hadhow marka cudurkii ka hadlayo cudurka meeshaas uu saameeyaa already wixii waad garanaysaa sidaas ayaan ugu soo daray maxay tahay qaab dhismeedka isha indha la'aanta adduunka hay'adda caafimaadka adduunka ayaa waxay sheegtay in 2.2 bilyan oo dad ah ayaa araggooda maxay tahay fog ama dhow u yaryahay ama indha la'aba waxayna sheegeen in 1 bilyan oo ka mid arag yarida ama indha la'aanta laga hortagi karo waa haddii uu qofku baaritaan maxay tahay hore oo maxay tahay early uu sameeyo ka hortagi karo indha la'aantii marka si guud hay'addu waxay sheegtay in 80% indha la'aanta adduunka oo dhan la daaweyn karo lagana hortagi karo waa haddii marka buukan wuxuu ka qayb qaadanayaa wacyigelinta maxay tahay bulshada si loo yareeyo indha la'aanta especially Soomaalida maadaama af Soomaali ku qoran yahay cudurrada ugu badan oo aan ka hadlay maxay ahayd buukan aan ku soo bandhigay waa sida ay hadba u sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka si u sheegtay yani qolo kasta cudur kasta waxa ka iyada sheegtay maxay cudur kasta inta qof oo la ildaran way sheegtay marka waxa ugu horeey aragga ciladaysan oo kale si sahlan ayaa waxa lagu daweyn karaa ookiyaalaha caadka indhaha oo fuulo waa kana sawirkan inii muuqda waaye maxay ahayd lensiga isha ama baliisha isha ayaa waxa fuulaya maxay tahay caad markaas hadhow aragga wuxuu noqonayaa isagoo iftiinka ayaa isagoo shucaac wuxuu gaaraya shabakada isha ayuu gaaraya qofkii araggiisana saas uu noqonaya laakiin waxa la sameeyaa baliishaas ayaa la bedelayaa baliil cusub ayaa lagu bedelayaa sidaas ayuu qofka araggiisa ku soo laabanaya cudurrada kale oo waxa way aan ka hadlay waxa kamid ah biyaha indhaha ku noqda oo waxa u bixiyay biyaha indhaha ku noqda ayaa u bixiyay glaucoma ayaa la dhahaa hadda qoraaga Maxamed Nuurku hadda sheegaya xanuunkaas mid kale aan ka sii hadlay waxa way burbur ku yimaada dhexbartanka muuqaalada ayaa ku yimaada kaasna waxa la dhahaa age related macular degeneration ayo sonkorowga markuu dhaawac gaarsiiyo shabakada isha marka hadda labadan sawir hadda aad u jeedaan maxay ku kala duwan yihiin baan malaynaysaa sawirkan hore maxay tahay qofku wuxuu arkayaa dhexbartanka uu arkayaa laakiin hareeraha ma arkayo markaas oo kale waa marka uu qabo maxay tahay cudurka aan bixin biyaha indhaha ku noqdo oo glaucomada cadaadiskiisa ayaa siyaaday isla mar ahaantan wuxuu dhaawac gaaray shabakadii isha oo ah meesha wax laga arkayay cudurkan waa kan ka hadlayno ay dhahayna age related macular degeneration dhexbartanka muuqaalada ayaa waxa dhacaysa burbur ayaa ku dhacaya saasayna noqonaysa iftiin yani wajiga lama arkayo laakiin qofka hareeraha uu arkaya marka haddii familygaaga ama maxay ahayd qof qaraabada oo kale uu ku dhaho aniga wax dhexbartanka waa arkaya laakiin hareeraha ma arkay isla mar ahaanta waxa garanaysaa qofka cudurka qabo Soomaa waxa ku dhiirigelinaysa inuu dhakhtarka aado haddii lagu dhahona maamooyinka waa ku aragnay Soomaaliya wuxuu ku dhahay anigu wajiga ma kala saari karo markaas oo kale waxa dareemaysaa inuu qofku qabo cudurkii aan ka hadlayno oo ahaa age related macular degeneration oo ah inkastoo cudurkaas ugu badan yahay wadannada Western-ka dadka cadaanka laakiin hadda Soomaalida iyo Afrikaanka uu badan yahay marka sidaan sheegnay 80% indha la'aanta adduunka oo dhan waa laga hortagi karaa markuu sonkorowgu dhaawac gaarsiiyo isha shabakada isha oo meesha wax laga arkayay isha ayaa wuxuu sameynayaa araggii sidaas uu noqonaya bar madow ayaa maxay ahayd ku dhalanaysa qofka wajigiisa oo kale wuxuu arkayaa laakiin bar madow ayaa ku jirta qofkaas oo kale waa dadka sokorta qabo oo kale hadii xilada isku arkaan
waxay ogaanayaan inay sugartii already ka dhaawacday maxay tahay shabakadii isha oo meeshii wax laga arkayo. cudurrada ugu badan oo caruurta ku dhaca sidoo kale waan ka hadlay. waxa ugu badan cawarka indhaha ama strabismus baa la dhahaa. il maxay toos bay fiirinaysaa isha kale waxa laga yaabaa inay bidix kor ama hoos fiirinayso. waa cilladaha caruurta ay ka mid tahay oo laakiin haddii xilli hore la daweeyo waa maxay waa la daweyn karaa waana lagu guuleysan karaa laakiin waa in maxay tahay xilli hore oo maxay ilmaha aad u daayay la daweeyo ayaa fiican. cudurka labaadna waa amblyopia oo isaga laftigiisa waxyaalo badan baa sababi kara oo ilmuhu waxa laga yaabaa inuu ku dhasho xanuun buu ku dhalanayaa مثلا glaucoma ama cataract ama arag ciladeysna oo kale ayuu leeyahay. ilmahaas oo kale marka maxay tahay labada indhood aysan isku arag ahayn maskaxdu way ignore kareynaysaa isha aragga fiican ay qaadanaysaa isha kale way ignore kareynaysaa. hadhow marka haddii aan ilmaha xilli hore aan laga daweyn waxa dhacaysa inuu araggiisu ishaas saasba ku lumaba. marka hooyooyinka yani buukan muhiimad gaar wuxuu leeyahay hooyooyinka sababta hooyooyinka waa dadka maxay ahayd ilmaha waqti ugu badan la qaata oo ogaan kara maxay tahay ilmahan maxay tahay suu wuxuu fiirinayo waxa laga yaabaa marka inay il isku qabtaan il indhaha yaryareeyaan. marka waxaan aaminsanahay yani hooyooyinka inuu buukan yani dadka aad ku anfacay inay iyaga ugu horeeyaan. sidoo kale waxaa kamid ah caruurta cudurrada ku dhaca baabka kore oo kale ayaa wuxuu daboolayaa isha oo waxaa la dhahaa ptosis xanuunkaas. marka kaas oo kalena waxyaalaha keena iyo sida looga hortagi karona waan sheegnay. sidoo kale waxaa aragnay caruur yaryar oo markay dhashaan maaragtay indhaha ilmo badan ka iska socoto taasoo xanuunkaasna waan sheegnay waxyaalaha keena iyo sida looga hortagi karo. marka saan mar hore usoo sheegay yani buukan aad iyo aad yani si gaar ah u anfacayaa maxay ahayd hooyooyinka ayaa ah dadka ugu waqtiga ugu badan la qaata ilmahooda. su-aashaan rabo in weydiiyo waxa weeye caruurtaada weligaa muraayo qoraxda ma u xirtaa? inta badan dadka waaweyn baa ookiyaalaha qoraxda xiran laakiin maxay tahay caruurta in ookiyaalaha qoraxda loo xiro waa very important sababtoo ah hay'adda caafimaadka adduunka waxay sheegtay 80% u barbixinta qoraxda waxayba dhacdaaba inta uu ilmuhu ka yaryahay taada 18 sano ah taada uu ku qaangaarayo. marka maxaa keena su-aal ayaa rabaa inaan dadka weydiiyo oo maxaa keena indha xanuunka isticmaalka shaashadaha kadib. qof kasta uu ka cabanaya markuu shaashadaha isticmaalo wuxuu leeyahay indha xanuun baa dareemaya indhihii ayay taali ama indhihii ayaa holcaya. sababta keenta waxa weeyaan ilbiriqsigan caadiga oo qof kasta laga rabo halkii daqiiqo waa 22 jeer. halkii daqiiqo ba isha waxay ilbiriqsanaysaa 22 jeer si loogu ilaaliyo isha qoyaankeedii oo looga hortago qaleylka isha. markuu qofku wax akhrisanayo wuxuu ilbiriqsanayaa kaliya 10 jeer. halka marka uu shaashadaha isticmaalaya ama mobilka ama yani maxay tahay aaladaha kale oo ilbiriqsanayo 7 jeer. waa 3 meelood meel intii loogu talagalay. sidaa darteed ayuu qofku wuxuu dareemayaa maxay tahay indha xanuun maxay tahay indhaha holcaya iyo madax xanuun buu dareemayaa. laakiin hadduu uu nasto maxay tahay talooyin baa jira aan maxay tahay ku qoray maxay tahay qaybta shaashadaha oo la isticmaalay hadduu qofku talooyinka qaato oo kale wuu iska yareyn karaa maxay tahay daalka indhaha uu dareemayo. sida looga hortagi karo cudurradaas aan soo sheegnay yani cudur kasta waxaan ka hadlay maxay tahay waxa keena sida looga hortagi karo iyo waxa lagu daweyn karo. marka si guud hadaa usoo qaato sida looga hortagi karo cudurrada ama indha la-aantaba aan dheho waa inaad joogtaysaa baaritaanka indhaha sanadle inaad ka dhigato ayaaba fiican. haddii kalena ama yani aadan u nugleyn oo kale xanuunada indhaha 2 sano hal mar ugu yaraan. inaad maxay tahay sigaarka iyo waxyaalaha khamriga iyo waxyaalahana aad iyo aad ay maxay tahay xanuunada indhaha usoo dadajiyaan oo kuwaasna inaad iska joojiso. inaad xiratid ookiyaalaha qoraxda waa very important. yani qoraxda waxyaalaha ay keento iyo dhibaatooyinka ay isha u keento si faahfaahsan ayaa maxay tahay uga hadlay. inaad iska daweyso cudurrada indhaha saameeya sida dhiigkarka sonkorta waxyaalo cudurro badan baa jira oo indhaha la xiriira. cudurradaasna maxay tahay inaad iska daaweyso ayaa habboon. inaad cuntooyin nafaqo leh oo isku dheeli tiran taasna waa very important. waa aad baan uga hadlay maxay tahay cunto kasta cuntooyinka indhaha u fiican mid kasta waxay ka qayb qaadato iyo cudurrada ay yareyso waan ka hadlay. iyo inaad ilbiriqsigaaga badisid in adigu waxa laga yaabaa markaa shaashada isticmaalso waa ilaawi kartaa ilbiriqsiga marka laakiin haddii aad maxay tahay isxasuusisid oo kale waad samayn kartaa. marka buugga dhaykan faa'iidooyinkiisa ayaa rabaa inaan kusoo koobo insha allah. waa dee inta aan ogahay wuxuu noqonayaa buugkii ugu horeeyey oo maxay ahayd laga qoro maxay tahay mawduuca indhaha oo ku hadla yani ku hadlay afka Soomaali ahaan lagu qoray. buug kale oo badan oo luqado kale lagu qoray way jiraan laakiin af Soomaali ahaan buugkii ugu horeeyey ayuu noqonayaa insha allah inta ogaalkayga ah. macluumaad badan oo maxay tahay ku saabsan cilmiga indhahana waa kusoo bandhigay intii aan ka aqaanay. wax kasta oo aad u baahnayd inaad ka ogaatid ilaalinta badqabka indhaha
ama talo kastoo kugu soo dhacaysay maxay tahay waa ka helaysaa buugka wuxuuna ka caawinayaa inaad ka hortagto indho la-aanta ifan qofka hadda maanta aan meeshan joogin oo fursad u helin oo kale haddii intiina aad intaad buugga iibsataan aad akhridaan qof kasta family buu leeyahay qof kasta familiga waxaa laga yaabaa inuu qof maxay tahay ka caawinayo indho la-aan ama maxay tahay wax arki waaye ama caruurtii oo kale ay wax arki waayaan marka qof kastoo buugga akhriya xataa wacyigelintii ayuu ka qayb qaadanaya wacyigelintii bulshada inuu maxay tahay kor u qaado sidoo kale waxaan ka maxay tahay waxyaalaha laga faa'iiday waxaa kamid ah sida loo maareeyo dhibaatooyinka aaladaha maxay tahay casriga ay indhaha gaarsiiyaan waxyaalahaas oo badan oo maxay tahay intii aan awooday maxay tahay waan kusoo bandhigay buugga intaasna maxay tahay intaas aan rabaa insha Allah inaan kusoo gabagabeeyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin